السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaal sidee naftaada guul ku gaarsiin kartaa? La soco 4 qodob. Qodobka koowaad, waxaad naftaada u sheegtaa inaad mar waliba guuleysan karto. Isku day inaad naftaada ku qanciso in ay ka faa'iideysato waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay. Qodobka labaad, ku qanci naftaada oo u sheeg naftaada in aad mar un guuleysan doonto. bar naftaada sabarka una sheeg in haddii ay duruufo adag iyo imtixaan ay kala kulanto nolosha in ay tahay sunnaha adduunka. qodobka saddexaad, u sheeg naftaada wax kasta oo ay kasbato inay helayso xumaan iyo wanaagba ha ahaadaan. ku qanci naftaada in duruufaha adag tahay wax laga baxo oo laga bixi doono. ku qanci naftaada haddii xumaan lagu sameeyo ama khalad lagu galo in aysan khalad iyo xumaan ku jawaabin bal ay ku jawaabto wanaag iyo soo dhaweyn diiran. qodobka afraad, waana qodobka ugu dambeeyo, u sheeg naftaada in duruufaha adag lagu raagaynin bal laga bixi doono oo ay dheef u dambeyn doonto. una sheeg naftaada adduunkan in aysan jirin wax la dhaho raaxo kaliya bal ay isku jiraan raaxada iyo murugada iyo dhibka iyo dheefta. u sheeg naftaada inaysan jirin wax si dhib yar ah lagu helo. wax waliba oo la helo in loo maro duruufo adag iyo dhibaatooyin badan. ku xidh naftaada Allah subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa oo la kaasho wax kasta oo kugu adkaado dhanka Allah subxaanahu wa tacaala. haddii intaas aad samayso way fududahay, guusha sidaas ayaad ku gaaraysaa oo guusha dariiqada loo maro ayaa intaas ah. kuna kalsoonow naftaada, waayo waxa ugu horeeya oo kalsooni aad siin karto ama aad ka heli karto waa naftaada. naftaada haddii aadan ku kalsoonaanin meel ma gaaraysid, guulna ma gaaraysid. waxaan rajaynayaa waan filayaa inaad ka faa'iidaysataan 4 qodob biidhnillaahi alkariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.